waxaanu joognaa magaalada Hargeysa saacaduna imika waxay tilmaamaysaa 5:20 oo subaxnimo waxaanu saaka u baxaynaa si aanu u soo eegno geelal fara badan oo caanaha looga keeno magaalada Hargeysa oo jooga deegaanka la yiraahdo Dabataxanta oo kamida degmada Cadaroosh oo u jirta magaalada Hargeysa ilaa 40 kilomitir geelaasi waxa halkaasi ku dhaqay meelo kalena geelal ay u joogan nin la yiraahdo Xuseen Ibrahim oo ku magac dheer Fardoole oo imika ka caana magaalada Hargeysa ninkaasi muddo imika laga joogo 4 sanadood ka hor ayaa isagoo injineer oo ka shaqeeya wadanka Canada waxa uu go'aansaday inuu xirfadaasi iska dhaafo oo uu ku soo laabto magaalada Hargeysa iyo deegaamada ku dhowdhow si markaasi geel ilaa 200 neef halkan uu ugu dhaqo oo dabadeedna caanahooda uu keeno magaalada Hargeysa haddaba geelashaasi mid kamid ah oo jooga deegaanta Dabataxanta ayaanu saaka u baxaynaa si aanu soo eegno Xuseen Ibrahim waxa kale oo caan ku yahay gaariga uu wato oo aan nooca loo yaqaan hamarka oo reer Hargeysa inta badan ay sheegaan inuu geela ku raaco Xuseen iyo sheekadiisina subaxa saaka waxay ku bilaabantay sidan حسين صباح وناكسن صلاتي صباح با سيدا imika maqlaysaan la dimaya حسين aad iyo aad baad u mahadsantahay inaad noo timi imika inuu bixi doona insha Allah حسين marka geelan jooga deegaanka Dabataxana aynu saaka ku socono mooyaane geelasha kale xagee bay joogaan waxay joogaan mid wuxuu jooga deegaanka Sheekh Moole imika ma kala foga midi balaca banu joogaan صح geela xaaladiisu marka sida bay imika tahay maadaama lagu jiro xilli jiilaala wala waa jiilaal hortu imika waa jiilaal roob la'aan baa jirta in Europe dhan imika way bilaabantay oo dadkeenu inta badan ceelal ma haystaane waa loo arooraa ma ogtahay oo biyalaan baa waddankeena ka jirta laakiin alxamdulillah roobkii sanadku way wanaagsanayeen ma ogtahay marka barkadihii barbay wali biyo ku sii jiraan ma sha Allah geeluna ka cabna حسين 4 sanadood ka hor baad ka soo wareegtay wadanka Canada sideebaad ku keentay fikradda inaad Soomaaliland ku soo laabatid oo aad geel dhaqdid walaani waa runta Ilaahay baa jecel waxa weeyaan oo wax jacaylnimo moogtay Ilaahay iyo yaraantaydii waalidkaygu geel badan buu lahaa runtii aabahay geel aad buu jeclaa marka waxaan imid malaayimka 5 sanadood ka hor baan imid halkan Soomaaliland waxa igu bilowday horta inaan geel dhaqo markii ugu horeysay fikradda keentay waxaan tagay suuqaan tagay caana geel baan doontay 12 keeda waan yaabay wadanka ugu xoolo badan ee dunida ayaynu nahay 12 kana caana geel ma yaalaan suuqa oo wanaagsani oo saafi ah markaas aan wax aqliga ma gasho moogtay arintaas markaas aan waxa weeyaan meel laga shaqeysan karo in xoolo la dhaqda markaas aan bilaabay حسين marka deegaanka Dabataxana geelana aynu ku soconnaa uu joogo dhinacay bay ka xigtaa magaalada Hargeysa waxay ka xigtaa koonfur galbeed ilaa iyo koonfur bari weeyaan aaga la isku yiraahdo Dabataxanta marka waa meel aad u qurux badan oo runtii hoodana oo dhirtuna aad ugu badan tahay insha Allah waynu arki doonaa imika markaynu tagno muuqaalka imika halka idinka muuqda waxa weeye magaalada Hargeysa imikuun baa waagu soo bariyaya waxaanu magaalada Hargeysa uga baxnay dhinaca koonfur galbeed waxaanu imika ku suganahay deegaanka la yiraahdo Masallaha ee caanka ee koonfur galbeed kaga aadan magaalada Hargeysa shabaqdi alayay mayga tashubaniyo Masallaha shafkiisiyo شق مدار دوشيسيو شاديو ناسيو شق نوربا لايسيو waatay waagiba imika soo bariyaya wali waxaanu ku sii soconaa deegaanka Dabataxan Xuseenow toddobaadkii oo kale imise goor baad tagtaa geela wallaahi toddobaadkii oo kale meelaha haddii ay lay baahdo 3 goor ilaa 4 goor waan tagaa
inta badanna xaggaasaa baan joogaa geelaan joogaa markaa safarkan 40 kiiloomitira ee Hargeysa iyo Dabataxan u dhaxeeya inteeba kugu qaataa caadiyan waxay ugu qaataa inta badan aniga saacad iyo badh oo nin ayr u socdaan oo wax kastaba ka fiirsada inkastoo lagu gaari karo 45 midhid oo ay tahay meeshu 40 kiiloomitir aan isaa u sii fogeyn haddana waxa weeyaan waa raf waa dhul adag oo aan ilaami jirin waa miyigan maraynaa taa awoodid bay ugu qaataa saacad iyo badh marka mararka magaalada Hargeysa oo kale aad joogto sida u wada xidhiidhaan inamada geela haya walaal inta badan imanka taaweera laga dhisay meel walba marka marmar uu dhacaa marmar ma dhaco haddii aan isweynana warqad bay soo diraano ay gawaadhida igu soo dhiibaan soo baxaysa laakiin telefoonka ku wada xidhiidhaan inta badan telefoonkan ku xidhiidhnaa geelasha marka la isku wada daro imise inan baa ka shaqeeyo haya Xuseen waxa haya 25 inan ma shaqadiisoo dhan marka la isku daro macal kuwa aroor walba u tagay ogaada waxii jira warka ka keena kuwa caanaha ka soo qaada kuwa caafimaadkooda geela report iga soo sameeyay soo sheega iyo geelu halku joogo wuxuu u baahan yahay 25 inan gaarigan aynu la soconnaa waa gaari ah nooca loo yaqaano hamarka isaga ma Kanadaad kala timi haynadeer Kanadaan markii hore deganaa anigii reerkaygu baan soo wada guurnay marka halkaasaan ka soo kaxaystay gaariga marka qalabka lagu dayactiro haddii wax ka xumaadaan oo kale sidoo heshaa wallaahi runtii ilaahay baa jecelo iminka wax kastaba oo dunidu ay dhow yaraatay internet baa jira marka haddii aan wax u baahdo Mareykankan ka dalbada DHL bay soo saaraan Hargeysa lagu keenayaa inamaan saaxiibano xagga dibadda joogaan way soo diri karaan Dubai lafteeda waan ka doonan karaa marka halkaas wax hawl badan oo caynkaas ayadu ma balaba Xuseen markii ugu horeysay aad ka soo wareegtay wadanka Kanada aad go'aansatay inaad hawshan bilowdid maxaa kugu adkaa muddo intee leeg baanad ka maqnayd halkan wallaahi waxaan anigu yar meelaha 10 jira ayay qurbahan tagay marka runtii xagaasaan ku koray North American ku koray jaamacada halkaasaan ka dhigtay iskuulada hoose markaan horta halkan imid runtii waxa igu adkaa waxa ahayd waxa loo haystay inaan nin iska kibrey ahay oo waxaan aan shaqo ka doonayn moogta marka dadkii inaan ka dhaadhiciyo inaan meesha ka shaqaysanayo aan xoolo dhaqanayo taas ugu adkayd runtii waxa weeyaan controlkii Hargeysa u dhawaa 12 kiiloomitir buu Hargeysa u jira faraweyna weeyaan ayaa laga xukumaa controlkana qorraxdu aroortii qaybtay talaara ama qaanta ruugaad daruur midab ku qarisay qiimaheedii qofna lama amaano qalad loo mahisi uresti haweenka saacadu imika waxa weeye 7:20 oo subaxnimo waxaanu soo gaarnay deegaanka Dabataxanta oo uu joogo geela Xuseen Ibraahin oo ku magac dheer Fardoole sida arkaysaan geelu badankiisii wali waa xareysan yahay bal hadda aan geela soo eegno iyo ragga geel jireehaya Xuseen marka caadiyan geela maxalligan oo kala la soo dareeriya aduha marka imika la maalo geela waa la sii deynaya marka xogaa yar waa la yirsiga waliba intuu dhaxantu ka yar dhacayso way waa jiilaal imika markaas la soo daaya geela daaqtaga marka tirahan geela halkan ku xareysanay waa inteen leeg waa tiradiisa guud waxay u dhowdahay 50 neef oo malaha wax yar baa dhiman ha marka seerahan u budaaqaamiya seerahanna sidaad ii sheegtay adiga iska leh ha seerahan u daaqa marka seerahani waxa weeyaan beertani way weyn tahay waa 1 kilometer by 1.3 1.5 hal kilometer iyo badharka iyo kilometer ballaarka waa hagaag bal hadda geel aanu tagno haye iska warrama soo lama wanaagsana khayr weeye
ونرجينا هل كانوا كحريسين هاي غير قبتين أحمد ولا غير قبوين هذا أنا عبد السلام هرري والله يلا هذا برشون أكسن ديوان وركاغو وان كليرك سنهي قيل نمك واحد إرماني هاي لحبلاد إم سهلات بمركا كذا لي سنة كان والله واحد علي قيلوا دو إن بقول حلال مركل سكو جيو قيل دقرتي سؤاليات بيون أكسن تاي محو هل كان داقة والله وحب دثيره داقة إن بيرتن وبرواق الراب كي جدا بيان هلاي هل كان إن راب كي دايرته أيان هلاي marka duug buu haystaa ayuu haystay marka caws wanaagsan buu haystaa dhirtuna way wanaagsan too sogsogta ku badan xagan marka sogsogtuna geel caafimaad badan bay u leedahay xagga caloosha iyo xagga dhogortaba marka geelal kale iyaguna aagan degan ma jiraan walaa way jiraan laakiin inta badan waa laga guuray idriiso saacaynka ma badan ku guuray laakiin wax loo ka yaala waa Idris seerahan geela jooga mooyaane geelal kale oo meelahan degan ma jiraan aduu way jiraan qayba badan oo degdegan way jiraan laakiin badankoodu imika way guureen iyagoo ay dhulku iska wada seeray yahay haddana dadka socda ee soo guuray ayaa degdegan inta laga arkeen marka geelashu inta badan waxay daaqaan seerayaasha u gaar ka miya inta badan inta kaasay daaqaan waatay bal hadda ka waran deegaankan iyo dadka ku nool iyo tiraahan iyo geelasha jooga iyo sayyi way adigu dadku wuu wanaagsan yahay iyo walow biyo la'aan ay hayso oo booydu ay u dhaamiyaan dadku tiradiisu ma yara ilaa 500 oo qoys ayaa degan waa deegaankan dabataxantoo kaliya cadroosh marka adigu in kala soo guurtaa hoga bari ka soo guurtayna way timid oo imiga dulsaar ku abadee marka geelu intee leg buu ku cabaa imiga wuxuu ku cabaa aduu ilaa 12 ilaa 12 marka siiba geela irmaani 8 ilaa 10 ayuu ku cabaa maalmood waatay bal imika geelaanu yara dhaxmar sida idin muuqatay imika geelii nirgihii baa lagu soo daayay si annagana la noogu maalo maaragtay aanu caana wax uga cabno عشان مقعد بحني ولا لا أحمد هشان مقعد واحد بحني ولا لا واطي بحني ولا لا marka waa halaha ugu caana badan miya caana halaha geela ugu caana weeyaha nirigta marka lagu sii daayo si ay u dararto intee lag bay qaadataa nirigta lagu sii daaya nirigtu waa inta gudlinayso marka shaqaysa gudlinayso baa lagu sii daaya hasha gudlinayso marka waxa qaataa ilaa adu ilaa 10 mir dhood malaha intee lag baa marka caana ka baxda hashan oo kale Axmed waxa ka baxaadu ilaa adu ilaa 2 litir ilaa 2 litir iyo bar malaha markiiba marka 2 litir iyo bar baa hadana ka baxa habeenkii oo kale miya habeenkii oo kale marka maalintii waa 5 litir waa 5 litir حسين وانت بك kugu qaadatay
geela adiga magacyadiisa kala sheegayay inaad la qabsatid oo aad kala baratid runtii waxay igu qaadatay waqti dheer waayo horta geeluna u badan yahay alxamdulilah waxay igu qaadatay sanad almost ay igu qaadatay ugu yaraan moogtay isaanu magacyadoodii iyo muunadahooga nimanka shaydan ka gartaa neefka halkaas socda hasha halka taagan magaceedu hashan waxa la yiraahdaa waa soog baa la yiraahdaa soog baa la yiraahdaa hashan maxay ahayd taalkan joogta dhudi baa la yiraahdaa hashan gobaad baa la yiraahdaa waa hal iyaduna aad u qiimo badan maxay ahayd hasha halka fadhidana tan waxa la yiraahdaa dhamays ayaa la yiraahdaa hashan waa hasha aad u qiimo badan ma kicinaaba hashana dhamays baa la yiraahdaa tiri ma dhamays ma soo tamish ayaan ku halmaay way isku eegiin marka sidee lagu kala gartaa geelo markaad leedahay way isku eegiin hortu de muunadooda siday tahay hashu dhararka qaar baa geela dhaadheer qaar baa gaagaaban qaar baa meel dhaxaada marka hasha imika inankaas uusha ku yar dhuftay iyada luud baa la yiraahdaa ay ka shaysa dhamaysna waa taa garab joogta marka way xagga hilibkii xagga lafta way aad bay isku dhowyiin iyo midabkaba marka taalkaas si jeeda iyadana sharaf baa la yiraahdaa way halihii saasaa u kala garanaysaa nirgaha yaryar ay dhaleen maxaa lagu kala gartaa walaahi nurguude dhawaan bay dhasheen runta ilaahay baa jecel saanu ma kala gargaranayo laakiin qaar badidooda waan garanayaa alxamdulilah laakiin raggan geela haya waxaan u malaynayaa inay iyagu caadi u garanayaan soo maaha hal walibaaba nirigtay dhashay toos baan u kala garanaynaa si wanaagsan baan u kala garanaynaa waayo waxa weeye waan ka dhalinay marka qofku ilmihiisa sidan uu garanayo ayuu ilmahan hashu dhashayna u garanaya marka waxa weeye tin awr dhashay iyo tii dhashay nirigba waanu garanaynaa waayo intaas oo bilood ayaanu soo haynay imiga 6 bilood ayay jiraan nirgahani 6 bilood baa anagu gacanta ku haynay sida awoodeed saasaan u kala garanaynaa oo keentay inaanu kala garanno kala baranno Xuseen isaga waxa ku yardee ma garanaysaa ku yar adag inta badan nirgihii dawaanu dhex joogin dawaana nin way aragna waanu ku ahayn ma garanaysaa marka alxamdulilah imiga waxaan ku ori sidoo geel u kala bartay waa wax la yaab la weeyaan ninka weyn ee intaas soo sano way caanahani waa caanihii imika hasha laga lisay oo ku jira yacbi iyagu oranaya ee qabsanaya مصطفى wuxuu ka yimid Oregon oo dalka Mareykanka Mustafa ka waran halkan aad maanta dhex joogto wallahi waxaan aragnay waa wax lagu sheegi karo hadal maaha nin arkoon baa loo baahan yahay nolosha bedelka uu sameeyay saaxiibkeen Xuseen waa wax tusaale dadkeen oo dhan oo mudan in la dhiirigeliyo dalagu daydana waati maxamed ka waran bal hadda caanahan imika hortaada lagu lisay aad cabaysid cabdisalaam waxaan oran karaa caanahan noocan kale waxay ugu dambeeyay 20 sano ka hor marka maanta farxad weyn meegtay ama labad intaan aniga joogo wadanka kale caanahan kala dhimi kara moogta xuseen haddaan ku weydiiyo calaamado ayaa inoo muuqda geela dhegaha kaga yaala maxay yihiin runtii waa waxaan aan geela ku nabay dhulkeenan weli laguma nabin geela calaamadaha waxaan ugu nabayna geelu markuu dhowr tira noqday dhowr boqol noqday ayay igu yar adkaatay de saan ula socon lahaa hashani tay ahayd goortay dhashay maalintii waxaa la siiyey maalintii la jeel tiray maalintii ceelka la geeyey geelaasi marka si aan u ogaado hal kastaba caafimaadkeeda sidii ayaa number ku qortay aan u kala gartana runtii intaan baranayo iyo magacyadoodaba aan isku la xiriirino heblaay lambarkeedu waa inta magaceeduna waa ka iyo neefkii ay dhasheen lambarkiisu waa ka hashaasuna way dhashay goortaasay dhalatay
سانو كلا ogaano dee neefkii uu saan ula socono taa awadeed baan ugu nabay numberka waxyaabaha kale marka diiwaanka ay u gelisaan maxaa kamid ah xilliga cabto dawooyinka la siiyo waxyaabo saas sameeyaan maalintii la jeel taray milixda loo dhigay amba ceel dhanaan la geeyay geelaasi markuu neefkaasi dhalay ilmaheedu daadu jira imanka waxyaabahaas muhiima aan ugu qornay iyo neefka barashadiisa aan u ogaado neefku yahay imanka halkaas anoo meel kale joogo geel kale la joogo lagu dhana waraashii caynkaas ayaa u baahan in waxa la siiyo maxay kula tahay Xuseenow markaasaan idhanaya hashi wal numberkeedu waa numberkii markaasaan buugay keegaya inay hashu la jeel tiray inay ceeldanaan soo cabtay in la waraabiyay markaasaan ogaanay war hashu malaha way oomantee doorkii horena biyaha saanu may cabine bal sida ay saa yeela marka ceeldanaan deegaanka imika aynu joogno intuu jira walaahi ceelasha wanaagsan qurac loo kala geel inta badan geynaa ambaan uga soo dhaaminaa iyo ceelalaale iyo kiibaale waanu geyn jirnay geela wuxuu noo jiraa 120 kilomitir ugu yaraan ilaa 180 kilomitir bay jiraan ceelashaas marka waxa loo sii socdaa geel wuxuu soconayaa malaa 5 habeen uu sii soconayaa ugu yaraan ceelka ugu soo sokeeya marka geel inta badan dhalay waan u soo qaadintan ceelka tagnaan u soo dhaaminaa markaas aan keenna ayaan halkan ugu keenna xerada kuwa guran iyaga waanu kaxaynaa iyo kuwa riman awrku ku jiro geela gurane urweynta awrku ku jiro iyaga waanu kaxaynaa ceelkaanu dulgeynaa Xuseenow hadda geela suugaantiisa maxaad ka haysaa wax waan ka hayaaye de waa qayb fara badan mar waa la waraabinaya marka maxaa la oranayaa marka la waraabinayo laba qaybood baa loogu heesaa mar waxa weeyaan waa marka hore ee geel uu soo dardugayo aanu tuban yahay weeye waxa loogu heesaa marka waxa la oranayaa walaleeyay wabaleeha washifaku absar eleeyo sharkumale wabaleeha meelahaas laga bilaabaya waa marka uu la soo tubo ma garanaysaa walaleeyay marka labaad ee haddaba inaan uu soo dardugo luqad kale loogu qaada waxa la oranayaa waa maalintii maxay ahayd waa naga soo naga liqnay waxa la oranayaa waa maalintii maydhiya candhada uu maali jiray waa maalintii waa maalin caws iyo maalin ceel waa markaana waxa weeye waa marka durduuraha dambe marka dee la rarayo ee misalan la wado iyagana heese gaara buu leeyahay markaana maxaa la oranayaa ee la rarayo waxa markaa loogu heesayaa oo la oranayaa waxa markaa loogu heesayaa waxa la oranayaa qudutaaba oo qurdulmeel laba waa qubnaan jiray qudutaaba oo qurdulmeel laba waa qubnaan jiray heesadee noocaasa dee wuxuu way fara badan yihiin wax noocaasa baa loogu heesaa oo iyana luqad gaar ah oo noocaasa ayay dee leedahay marka la rarayo kolka la rarayo misalan dee gaadiidka dee macnaha aynu awrta dee hadda weeyaane ee la rarayo awrta waa la soo fadhiisanayaa awrkii oo dee juubaa la leeyahay markuu awrkii fadhiisto ayaa dabeedna uu leeyahay waan kugula soo dhacay ayuu odhanaya waa abtidkii qobta la yidhaaho inaan kugu dhuftaad mooda waan kugula soo dhacay ma intaan xaamxaamanayay reerii dareereen ma intaan raanraamanayay reerii dareereen waa marka awrta la raraayo iyana wax noocaas ahoo dee waa awrtaa lagu raraa carrada marka la carraynayo waa luuqad gaar ahoo waxaa la odhanayaa jeeniga miskeed jeelbaa melmelay jeeniga miskeed jeelbaa melmelay waxaa inkaas baa loogu heesayaa markaana oo waa jeelka markaana loogu heesaya sidaasay gamaan farad ingageesidaabsaday oo darduur miray sodonjiriya gawdeed u goobay sarowgeed sararka iyo gaadada
sidaatahay kamaan fara halgageesidaadsadayro garduurmiday sodonberiya gawdeed u goobay farowgii sarartayo gaadada عند العراء عدود مرمين عند العراء عدود مرمين وقلب اللوطرو إذا رمت قياد دلي حدقتين تقيدني وقلب اللوطرو إذا رمت قياد دلي حدقتين تقيدني انظر أولادي ولصوت درجني waati xuseen halkan waxaa ka muuqda aynu imika ku dhowaan doonaa fardihii iyagana muddo intee leeg baad halkan ku haysay wallaahi fardahan waxaan dhaqay 5 sanadood ka hor marka midi bari baan ka keenay faraska ugu weyn min geeyana waxaan ka keenay 2 geeyadoodna waxaan ka keenay galbeedka meel alla baday ka shisheeysa marka imika kuwan yar yar imika weyn halkan ay noogu dhasheen saddexdan halkan la jooga saddexda waa fardo marka midi waxa weeyaan 4 jir midi waa 3 jir midna sanad baabu jiro kol hor u dhashay kan ugu yaray waa tagayeen marka xuseen naanaystaadan fardoole ma fardahan dhaqaday kuugu baxday ha halkaas ay iga timid naanaysto ayaa fardoole leeygu bixiyay marka ma sidii aad sheegtay inaad yaraantaadii geela u jeclayd oo kale ayaad fardahana u jeclayd maadaama iyagina aad dhaqaysid wallaahi farduu markaan halkan imid unbay soo galeen si yaroo aan lama filaana geelaan aad u jeclaa runtii ilaahay baa jecel moogtay fardaha iyo geeluna waaba kala maarmaanoo hasha baaydoonka waad ku dooni kartaa faraska moogtay hasha kaa fogaata ama kaa lunta waad ka daba tegi kartaa intaad faraska ka haysatid marka inamada geela la jooga waa wada fardo fuul badidoodu moogtay way yaqaanaan hawlooga way ku soo qabsadaan markay karaan maxay ahayd farduna wax ajaayibo waa hawl fudeedin yaabay leeyihiin moogtay xuseen fiiro dhawaano bal hadda waxaynu eegi doonaa fardihiyo iyagana imika la kooreynayo koori la saarayo waa dhab saxa marka faraskii weynaa ayaa imika ay saarayaan kooraha inamadu waxay ban islahaaba way sii saareen waa kuwa imika inoo saaraya alxamdulilah maxay ahayd marka iyagana waynu arki doonaa marka tira ahaan maadaama ay geeli aad uga yar yihiin xuseen ma iyagana ma kala taqaanaa waan kala aqaanaa iyaga magacayumaan bixin runta ilaahay baa jecel moogtahay oo nin geelun baan aad u jecel oo aan ku mashquulsanahay runtii farduna waxaas waa fardada aad fardu ilaahay baa shay quraanka lagu sheegay xadiiskaba oo wax aad u qurux badan moogtahay fardu alxamdulillah laakiin geeya imika igu jirta kaliya geeyin kala iyadu ayaa hooyatay runtii oo bardhaweyd baa ayaa yar xanuunsatay marka xanuun baa dilay marka imika inta halkan faras joogta waxa weeyaan alaam salaam maxamed 4 faras iyo geeyo waa 448 5080 digadana waxa ku baxjisna maashin fertilizer waa inta weey waayi waad mahadsantahay sidaa idin muuqata iyadoo geeli la dhex joogo miigii la joogo ayaa farsamadii casriga ahaydna ay barbar socotaa oo telefoonkii lagu wada xidhiidhayaa meel kastoo aad joogto sidii xuseen uu ii sheegayna inamada geela haya qudhooda wuxuu kula soo xidhiidhaa telefoon oo telefoonada mobileka gacantay wataan markaa saasaa isgaarsiintiina meel kasta u gaadhay
kahor intii aanan xeradan ka tegin ayaa xuseen ibraahim oo fardoolo loo yaqaano oo isagu waa ninka geelan iskali waxaa kulan ardaaga uu kula yeelanayaa inamada geela haya si markaa ay uga warramaan waxyaabaha loo baahan yahay iyo xaaladda geelu si ay tahay bal hadda kulankaana aan eegno kahor intii kulankii aan idiin sheegay aanu bilaabmin xuseen uu la yeelanayay ragga geela haya ayaa waxaa noo yimid nin isaguna geel baadi doonaya maaragtay geel baadiyahoo 7 ahoo 2 dhaad iyo 2 alifle oo 2 qaalmoodoo ay gaar uga soo baydheen oo 2 qaalmood ay leeyihiin 2 dhaad iyo 2 alif iyo shiid luquntaa waxa geela waxa aragtaan waxba ilaahay idin mudsin waaya geelaasi halku kaaga lumay walaal geelaasi wuxuu ka soo lumay laaye laayena intee u jirtaa halkan laaye waxay u jirtaa halkan inaada in badan bay u jirtaa ilaa 3 maalin socod marka intaas oo dhan baad soo socoto baadidoon baad ahay intaas oo dhan waan soo raadkiisaan soo hayay meel dhow raadkiisa kaga baabay xagee buu baadi u yeebay kula tay markaa bari inuu xagga bari u baadi yahay baan filayaa bari buu socdaa geelaasi maxaad ugu malaynaysaa inuu bari u socdo waxaan ugu malaynayaa 3 yoom meesha 3 maalin socod soo socday ayuu bari uu soo jeeday waa tay baadidaada ilaahay soo dhaweey amiin sidee caafimaadkiisu aad buu wanaagsan yahay waay marka kalkiisana wali adu maanta waa u 3 ha marka dad la yiraahdo berri ma waraabinaa berri mise waan yar sugnaa adu berri hadii adu walba si u oomo ha waa sax bar waraabinaa waay waa si wanaagsan waxaad iga sheekaysaa geeli kale ee maalintii halkan ka cabay isaga imisa kalkiis waa imisa maanta isagana maanta waa 4 ma sha Allah waa 4 waa sax marka biyaan ka soo qaadnay quracleena waxba inoo hadhay mise geelu dhamay meena xogayba in yar ba ku jirno badneero geelaan waraabinin laakiin geelu maxay kula tahay ma jeel baxay ma geelu aad buu jeel baxay bi quraclo ku jeel baxay ku jeel baxay waa sax waay waa wanaagsan hada ma sha Allah waxaad iga warantay xagga nirgax caafimaadkooda aad buu wanaagsan yahay صح marka way imka way soo waamiyeen imka wax biyo in la waraabiyo imka iyagu imka ayay ku wanaagsan way biyaha daba quracale talo moolna intan inoo hadhayna ku filaanayso way ka yarta waagay kale dhawaan bari baan tagi doonaan soo dhaamin doonaa hadii ilaahay yiraahdo sayro ku yasbadan soo baxa kalishi silsila loo degay sanad geelu badi dhalay sayro ku yasbadan soo baxa kalishi silsila loo degay sanad geelu badi dhalay oy silsilaalays dilkuwan socod baran oy silsilaalays dilkuwan socod baran reeraasitoodiyo kay masarle loo dhiga waxaanu imika soo gaadhnay halkii geela kale uu joogay geelaasi oo xuseen uu noo sheegay in ilaa 50 halaad uu yahay oo awr baarqabina uu ku jiro geelana aanu eegi doonaa imika isaga la foofiyey beertanna waxa weeye seere kale oo xuseen laftiisu iska leeyahay marka geela iyo siduu u foofay baynu imika eegi doonaa sayro ku yasbadan baxa kalishi silsila loo degay sanad geelu badi dhalay sayro ku yasbadan soo baxa kalishi silsila loo degay sanad geelu badi dhalay silsilaalays dilkuwan socod baran oy silsilaalays dilkuwan socod baran mageelaad sawiraysaa baan haye geela muxuu xidhay baad tiri dahab haye hal aan dhegta daloolin mal kalkan soo ayaan waa geeli fardoole yarjarku
وقالي فردوله هاي ها meelahan ay idinku degantihiin miya reer Cabdilla Saado halkan marka ari iyo geel iyo ba ku haystaa ari iyo geel baan haysanaa baqal baan waday imika oo kane way baqasha xageed ku wadaa marka beer halkaasaan geynay صح beer halkaas beertana geynay tan dhika sii ruba صح tanaan geynay deegaanka see lagu yihi marka deegaanka waa daf deegaan waa daf soo nimcaysanayso ma wala nimcaysay alxamdulillah shukri alxamdulillah wala fiican صح marka geel fardoole wuu ka duwan yahay geelasha kale miya bes ka uu ka soocan yahay shalay galaba qaar ka markay yimaadeen markaasaan Allah waar galin ma daawid weeyay naga roga waabanu imi waa ka qaranka u daadanaya waar galina kana waa hore yarka ahaa uu ka tilmaamayay ay imika hadalkayga duubaysa miya waad mahadsantahay istafiid aniga dad kamarada awar ilkalahay ku qaban igarni garisabo maqaar lagu salaaxay saamee shigawa وطار قبصوهني سقوا لب الصبر صوفي يميلو كسنقاري يدفتي سلادين الرور سذي وبكي وسانيوم ثم حسين وقيل إني فوفي سوما مرة يدل سيداي جودود بحرة كبحيها جودود بالسيداي ويساعد منك وحويان سيدية وحير يعني مرة سيدية طبعا وسجال كيو طبعا وكا وسجال كيو طبعا لا مركا حلي جاني منك جيلو دريري هل كان إننا جمنا فوقا يعني متجينا أنا طالع يرادو يعني جيلن أور كيبا كتير أور كيبا رقبكا حسين waxaad dib ugu yar noqotaa noloshaadii hore ee Alberta Calgary baad deganayd wadanka Canada muddo aad u dheeraad ku noolayd injineer ahaan aad kaga shaqeynaysay isbedelka noloshaada hore iyo tan imika maxaad ku tilmaami lahayd wallaahi wax wanaagsan baan ku tilmaami lahaa waayo horta anigu qurbahan ku koray moogta anagoo yar baan la geeyay moogtay halkaasaan iskuulada hoose ilaa iyo jaamacadda ayaanu ka dhiganay anigu waxaan ka soo baxay jaamacad magaalo leedahay ku taala Montreal oo Canada ku taala marka waxaan ka soo baxay jaamacad engineernimo laga dhigto wax kale aan laga sameyn markaan waxaanay civil engineer baan ahay waliba waxaan ku shaqulay bridge-yada iyo daaraha ayaan ku shaqul lahaa dhaadheer marka inta badan waxaan u shaqeyn jiray kubriyadan petrolka ka soo saara Alberta waxaan gobol ku yaala Canada marka badda dhexdeeda ayaan petrol ka soo saari jirnay meelaha qaarkood iyo bariga baan ka soo saari jirnay kubaniyadaas aan u shaqeyn jiray marka markii aan dhowr sanadood shaqeynayay ayaan yiri bas hadaba imika waan wadankayga ku noqdaa wax ka soo qabtaa aan dadkii la soo shaqeeya aan wadankayga wax muhiim ah aan ka soo qabtaa marka sida awadeed baan u soo noqday kalida ma soo noqonay Xuseen sidaan ka warhayo xaaskaagii iyo laba caruur aad dhashay baa kula socday iyagu sidee ula qabsadeen halkan wallaahi dadku marka hore waa aad baa la yaabo waxa la igu niyo caruurta miyaan u baqanayn halka ku dhalatay ee yaryar ee marka inankayga weyn marka wuxuu jiray markii aan soo noqday 3 sanadood buu jiray 2 sanadood iyo bar 3 sanadood marka dad badan baa la qabsan maayo biyo ku xanuunsan wax markaan yaabaan ku yiri waniyo anu de ma maleynaya wadan caynkaasi inaan ku noqonayo waxaan isleeyahay ku si caafimaadiye arrintan anu idinka inugu jirto aniga iguma jirto moogta xagga fikradahaan markay yimaadeen markay malaha 7 cisho joogeenba walaa ani xoolaan u lis ana geelbaan si wax alli waxay ku noqdeen ma jiro in yaro de shuman yaro maalinta ugu horeysa caadiyada markuu ilmaha la siiyo caanaanu hore u cabi jirin mooyaane caafimaad baa halkii ka sii qaadeen oo wanaagsan marka si wanaagsanna way ula qabsadeen oo yaab leh waxaanay halka ku haysanna way hereeno caana saafiyo oo xoolaheeniyo de wax saafiyo soo daaqo soo cunay ayay heleen moogtay markii way ku caafimaadeen way bal hadda Xuseen waxaad ka warantaa kale dhibaatooyinka ugu waaweyn ka hor yimid dabcan noloshaadii wax weyn baad ka bedeshay dhul muddo dheer aad ka maqnayd iyo dad aanad badana aqoon u lahayn iyo waxbaad soo dhex gashay maxaa kuugu daraa hawlaha ugu waaweyn ka hor yimid maxaa kamid ahaa wallahi horta runta ilaahay baa jecel moogtay
aniga waxa iigu darnaa dadka iniyadjabiyey igu yidhi war waxaan aqliga ma gale wax kala samee xoola dad qof ma dhaqdo intuu dibadda ka yimid bacmusar lagama sameeyo ee wax kale u dhaqaaqoo nacam niyadjabda ii keenay mooyaane ila fahmi waaye shaqadaan wada mooyaane intaasaa igu adkayd runtii waayo dadkii way fahmi waayeen waxay igu qasabtay inaan anu dib uga dhaadhiciyo adeeraday baa lay soo diray ninkani dee lacag buu baabiinaya u daadinayaa ninkan ha lala hadlo marka taasaa igu adkayd runtii in dad qofka ka dhaadhiciyo laakiin alxamdulilah maanta waa la fahmay geelaynu ku siira dhowaan doonaa oo xaggaa u foofay laakiin xuseen haddii su-aal kale aan ku weydiiyo markii geela iibsigiisa aad bilowday dabcan khibradu maad lahayn iyaa kaa caawiyey wallaahi waxa iga caawiyey runtii runta ilaahay baa jecel soo maaha dadku waxaan fahmayba inaanay geela waa la yaqaanaa dushan baa laga yaqaana cilmi gaara looma hayo waddankeenu dadkii hore way wax tegey iyo wax daa'ima ku aan hawshaa qaban karin baa jira marka runtii anunbaa u dhaqaaqay waayo waxaan ugu dhaqaaqayna waa waxaan jeclaa awowgii baa geel lahaa aabbahay baa geel lahaa oo aad iiga sheekayn jiray moogtay marka anunbaa u dhaqaaqay bal waxay igu waajibtay inaan iskuul kale u galo aan anugu baadho aan internetka galo aan niman geela ka soo shaqeeyey warqado u qoro ay iga soo bugag lay soo diray markuu neefku saa noqdo sida loo dhigayo sida loo daweynayo wuxuu geela u wanaagsan waxa laga ilaalinayo waxaasoo dhanba anaa bartay oo qasab ay igu noqotay waayo dadkii guud ahaan unbay geeli ka sheekaynayaan laakiin cilmi gaara way yaryiin dadka u leh waa tahay markaa inkastoo aad sheegtay inaad daraasado badan ku samaysay geelii oo adigu aad isbartay dad kale aad la kaashatay dhakhaatiir ka caawisoo kale tusaale ahaan ma jira mise adunbaa la daala dhacaa walle runta ilaahay baa jecel boogto anunbaa meel kasta geela la maray keligayba ayaa aad ula dadaalay oo waan weydiiyey dadkan moogtay markaan deegaanka soo diray dadkan jaarkee geela reerahan ii dhow ee aanu wax isku nahay amba aan jaarka nahay de waan weydiiyey waxaan ku yidhi war arrintaasaa jirtay maxaa sidaa looga takhallusaa waa la caawiyey laakiin waxaa jirtay marmar aan cid waxay sheegtaa aan waayey moogtay oo igala qabata waxaa ka mid a moogtay iminka sampal baan qaadaya iminka dhowr cudur baa jirto dadkeenu ku wada sheegaan shimbir calooleed shimbir madax sida loo kala saarayo keliya ayaanad fahmin marka lagu micnaynayo waayo waxaad fahmaysaa saddexdan shay la sheegay waa saddex cuduroo kala gaara mid calooshu ku dhacaa oo waxa weeyaan caal baa la yidhaahdaa moogtay oo matagisu keenaa midi waxa weeyaan madaxu kaga dhacayo waxa weeyaan waxa ka dhiman nafaqa neefka ka dhiman haddaad ceel dhanaan geysid u ka ba'aya amba ceel dhana haddaad geysid neefka uma imanayo moogtay marka aniga taas waxay igu qaadatay waqti saan u fahmo waxaan jira moogtay waxaana tan ku fahmino waa baaritaankan galay cilmigan daba galay niman jaamacada ka dhiga ayaan warqado u qoray oo geela halkan yimid amba Kenya yimid oo daba galay geelo baadhay oo de buga ka qoray ayaan ii soo jawaabay igu yidhi sidaa iyo sidaasaa loo daweeyaa waa tahay geel imika waa ka halkan daaqaya dhulkanunbuu ku foofaa markaa haa dhulkanunbuu ku foofaa alxamdulilah waana iska nimcaysay sogsogtaasu imika daaqaayo waa jiilaal xoogaa cawsana u haystaa intaasaa ku filan iminka deegaankan xuseeno waaynu imika joogno cabdiroosh baa xaggan inaga xigtaan filayaa dhinacan kale maxay naga xigay sayla xaggaa barigay naga xigta sayla galbeed baa beri naga xigta xaggan korna waxay naga xigtaa oo koonfur ku beegan magaalo muumin sayro guyad badan soo baxa kaliishi silsila loo degay sannaad geelu badi dhalay sayro guyad badan soo baxa kaliishi silsila loo degay sannaad geelu badi dhalay barnaamijkana intaasi ayuu ku dhan yahay iminka waxaanu dib ugu laabanaynaa dhinaca iyo magaalada hargeysa
saacaduna waa labadii duhurnimo waxaanu macasalaamaynaynaa qolyihiisina way noo soo dhaweeyey aad iyo aad إن شاء الله نولي كلته ونودي كسر نقطة نبض هدي الله يلا. سقوا الله بالصبر صوفي يميلو كسنقاري يدوبي سلادين الرور سذي وبكي وسانيو مدير لا تكسدي صغدي حين الروب هلي صباحي بريسة